musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka Hawcid Jamaal Cali Xuseen oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan dhexmaray xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland iyo qaranbixiyaasha Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka oo kulankan ay ujeedadiisu ahayd sidii loo soo afjari lahaa khilaaf xooggan oo ku saleysan dhanka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo muwaadiniinta oo si weyn ugu kala aragti duwan yihiin xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland waxaanu Jamaal ka warramay qodobada la isla soo qaaday kulankaasi waxaanu kala hadlaynay deeq-bixiyayaasha arrimaha danaha oo ah Soomaaliland doorashooyinka ayaan kala hadalnay waxaanu kala hadlaynay arrinka ugu weyn ee u yimaadeen oo ahaa arrinkan labadan diiwaangelin ee madaniga iyo codbixiyayaasha oo garka la isu geliyay oo runtii abuurtay jahwareer aad u fara badan waynu ognahay oo dhowr bilood ka hor waraq ay kala saxeexdeen baa jiray saddexda xisbi معارض وسيرك الداخلي يجونا وصحيحي الله قلت الشضي إن لبده ديوان قلنا أيهين لبده ديوان قلنا أو كلا مارتي كلا دول ونشغل سكول هاين ديوان قلنا تعد بحياش أي ديوان قلنا مدني جاه سيدا وقتين ديوانات مدني وحى وضدك عيال التركوبية تعد بحياش نوات عيدق بحياش وأي إيجيان سدور شو يكون ينوقو قبصومان دولة مشروع إذا ودتي ومشروع قارو أيوها وأنا واحد في عن الضلك وفي عن الله مريء لكن واحد عندي شيء ديوان قلنت مدني جو سنة ضعية قالتها بيلكوا استاكتانا متشرتو وحويا أنا جو وضم ذاك الشيء شقيا أفريقيا قاركود بيصدق سنوات شن سنوات قاعتي ديوان قلنت مدني مركز الصناعي ديوان قلنت عد بحياش وتندون الدور كي هراء دور شدي هراء مدحوينها عن الصناعي يدو حقالتها dhowr bilood bay qaatay waa tan doonaynay si doorashooyinku inuu qabsoomaan dawladdu waxay sameysay xagga xeerkii diiwaangelinta ee codbixiyayaasha ay ka keen lahayd baarlamaanka ayay waxay ku soo qastay xeerkii madaniga markaas waliba waxa xeerka ku qoran xeerka wan hayaa waxa ku qoran ilaa tan madanigi ay dhammaatay mooyay codbixiyayaasha la bilaabay taasoo runtii qofka dad daraafkireeya ama waa qofta ugu tala galay in malaha la islaayo ama la isku dhufto dadka sababta tamadaniga meel ay ku istaagtaan ma jirto in garka la isku galiyana maaha waana laba kala duwan marka taasa loo yimid xeerka qabiyo qoraalka ee la qoray ee wala draftka ee aan baarlamaanka loo keenin hadii baarlamaanka loo codeeyo ay nagu noqonayo sharci dalkana qoorta isu gashanayo oo dhibaato weyn ay ka imanayso tan arrimahan kala hadlayay waa arrimaha u yimaadeen qudhoodu arrimahaasi dawladda waxa laga doonayaa inay doorashada qabato dadka inay confuse gareyso ama kolba tactics ay la timaado cusub oo ay doonayso doorashada dib ugu dhigto taasi laga yeeli maayo dawladda iyada doorasho ku timid doorasho xalaal ay ku timid iyada ka caawin jirtay markii ay mucaaradka ahaayeen iyaga ka caawin jiray doorashooyin dib loo dhigo dhanka kale waxaanu isku daynay inaanu wax ka weydiino dhankooga labada xisbi ee wadani iyo kulmiye oo qayb ka ahaa kulankan dhexmaray xisbiyada iyo waliba qaranbixiyayaasha balse noomay suuro gelin inaanu helno mas'uuliyiinta xisbiyadaasi